Donald Trump oo ku dhiiqaystay dadkii shirka joogay oo dhan shirkii Davos ee ka dhacayay wadankaasi Switzerland. Haddaba hadaladiisi waxa ka mid ahaa sida tan: markii aanu joognay dagaalkii labaad dunida, Denmark Jarmalka ayaa si fudud ku qabsaday, waliba 6 saacadood oo kaliya ku qabsadeen. Denmarkna awood way u heli weyday inay soo ceshato, annaga ahayn kuwii u soo celiyay, laakiin doqonnimadayada inaan u celina ma yahay, waayo maanta anagii bay nagu abaalka dhaceen. Yurutan anaga noo boodboodaysa Mareykanka la'aantii maanta waxa la idin arki lahaa idinkoo la idinku qasbay inaad ku hadashaan af Jarmal iyo waliba in yaro Jabaaniisa. waxaan u sheegay Netanyahu inaanu isku xayeysiinin tiknoolajiyada diyaaradaha, waayo asalka waxay ka timi dhulka Mareykanka. waxaan la yaabay dawlado Yurub ku yaala oo imika aanad garanaynin waxa ay yihiin oo dhalan rogmay oo isbedelay gebigooduba, laakiin ma raba inaan halkan ka sheego si aanay ihaano u dareemin. bal anaga Kanadana noo bootaynaysa haddii aanu Mareykanku jirin oo inaad xasuusnaataan idinkuna ma idaan jirteen, maanta anaga nagu abaalka dhicina. waxaan shalay toole dhageystay sheekadii Macron iyo khudbadiisi. waxaan ka yaabay ninkaasi wuxuu iska dhigay nin adag isagoo xidhan muraayadahan qoraxda laga xidhay ee quruxda badan leh. nin adag buu iska dhigay isagoo aan adkay. madaxweynaha Masar show Englishta wuu yaqaan. waxay iska dhigaan nimanka wadamada ka yimaada inaanay luqadda aqoonin, laakiin sida saxda way yaqaanaan. waxay igu wareeriyeen Biden muxuu ka qabtay shaqadii shaqaaqada ahayd ee u dhaxaysay Ethiopia iyo Masar. runtii aad baan ula yaabaa, waayo Biden inuu nool yahay iyo inuu dhintay ma kala ogeyn.